عاشقيدا وعني قابكيدا لو دقاي تمحيدا إلكيو سيدا في أرحبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعنا ونكسر مركلي فيديو عصب جنال قاعدين على سعتان وحباب فاميلي أنا جوا مسين سوى هذا أصحابته مالي ونكسر هبي ونكسر صباح ونكسر كل شيء ونكسر أصحابته يقول عصب سوى هذا أصحابته وريدي جوت سوى هذا نحن ربح إنه وضع إن شاء الله فيديو كور إن شاء الله نحن ربح إن المرود يحنون كل خيب صدق لما يوتيوبرز كسوماليات شركة نحن لها أي قشة ولا شيء منيس إن شاء الله إلى روحنا قبرية خبر قاعد إنه لا واسعية روضة من رياض الجنة والد كذي أهل كذا إن شاء الله إلهي سمر إيمان كسية أنا أود الدعينا ولا شيء إلهي خبر قاعد النورية أنت لما أنت كلا أصحاب وأيضا نكون بريوة الشركاس إن شاء الله أنا كان عن فيديو أنا بلعبنا runtii qisada idin wada waa qiso yani la yaab leh oo murugo leh oo wax walba leh qisada waxay ku bilaabanaysaa in wiil lagu magacaabo Josh wuxuu ahaa wiil yar oo ah 12 jir Josh wuxuu ka dhashay family aad u jecel ma sha Allah hooyadiis iyo aabiis waxay dad aad u jecel wuxuuna lahaa laba walaal oo ka waaweyn Josh wuxuu ahaa yani waalidkiis waxa ahayn dadka guurka badan oo marba magaalo dego oo Mareykanka oo dhan marba magaalo ka degaaya marba iskuulka ogolan runtii waxa cunug yani aad looga jecel yahay oo ma sha Allah ah Josh waxa dhacday in aabiis horta Josh aabiis waxa dad aad u adag oo aanan ogoleen yani wax kasto ku wada xukunka iyo amarka oo waxyaabaha qaar aanan ogoleen ilmihiis dadka qaar inay la dheelaan aanu ogoleen oo yani dhahay xilliyada qaar lama dheeli karo xilliyada qaar dadka lama aadi karo so Josh marka aabasas ku loo qabay waxa dhacday in aabiis uu arkay maalin maalmaha kamid ah asigoo la dheelayo gabar jaarka oo Maliki la dhaho gabadha markuu la dheelay odaygu wuu xanaaqay oo waa wiilkiisu wuxuu ku yiri gabadhaas mar dambe adigoo la dheelaysid ma ku arki karo haddii aan ku arkana qaday ku taalaa okay buu yiri wiilka aabiis aad uga baqanay because odaygu wuxuu lahaa ciqaab kulul gurigaasna yani wuxuu ahaa guri hal time isku mar labada seexdo isku mar la soo wada kaco duqa oo Josh aabiisna wuxuu ahaa oday jecel markasta in subaxii waqti hore la kaco habeen waqti hore in la seexdo inaan yani guriga saaxiib iyo asxaab aan la keenin oo guriga ay noqdaan ilmihiisa iyo hooyadood iyo asiga bis qofka koraysan guriga soo galeen ilmaha markay yaryar yihiin ama teenagerka ay ku jiraan oo ogtiin waxa iska rabaan ilmo yaryar ee la dheelaan iyo wax kasta iyo soo marka waxa dhacday maalmaha kamid ah reerka oo guriga ka maqan ayuu wuxuu damcay Josh waxa ay ridu soo gargaraacday gabadhaas waa gabadh yareed oo maxay diriskooda ahayd oo Maliki markii ridu soo gargaraacday waxay tir soo baxayna keen aan ku badheelnay wuxuu ku yiri aniga ma dheeli karo aabaheen ka baqanaya wuxuu ku tiri may wax yar baan wada dheeleynaa okay buu ku yiri laakiin wax badan kulma soo dheelay ani isla markaa waa ka soo laabana okay buu ku tiri way baxeen kubadda markii la wada dheelay waa taqaana ilmaha waxyaabo isku dhufanayaan kubadda iyadoo la dheelay buu wiilkii Josh wuxuu sameeyay gabadhu isha wuxuu ku dhuftay banoonigu isha kaga dhacay gabadhi aad u ooysay aad u khaylisay khayliyo joojiyay kasoo yeelwooto wax kasoo sameeyo joojiyay marka dambe wuxuu soo qabsaday usha oo ul yani meesh ku tiirsaneed oo beer ay leeyihiin yani ul dhaxtaalo soo qabsaday usho gabadh intuu qabto ku garaacay way ooysay aamus weysay uu baxay kijadooda iyo taga kijada markuu soo qaatay mindi ku soo qaatay ku muddo ilaa ay gabadh ay ka aamusto yani ay ka dhimato gabadh markay dhimato soo qaaday Josh wuxuu keenay gurigoodii because aabiis uu ka cabsanay yani cabsida oo ilmaha loo geysanayo oo ilmaha laga cabsiino 24 saac la dilay dhibaatada ay leedahay taas uu soo qaaday markuu soo qaaday wuxuu sameeyay meedkii oo gabadha sariirta hoosteeda sariirta uu ku jiif hoosteeda galiyay gabadha waalidkeed bay raadiyay meel kasta laga raadiyay yani habeenkii maqribka la gaaro oo ayaga yani waqtiga ay dheesh ay ka xaroonayeen ayadii walaasheed markay guriga tagtay waalidkooda waayeen gabadhi kale markii la waayay kasta loo raadiyay isla markii booliska wargeliyeen boolisku waa la raadiyay markii oo laba maalin la raadinaya markii dambe waalidkeed waxay go'aansadeen in qofkii oo gabadhaas meel ku uga soo sheego
in la siinayo lacag $50,000 ah. $50,000 la siinayo. Marka asiga wuxuu ku jira Josh dadka oo gabadha raadinaya oo baadigoobkeedu ku jiro kaalinta koowaad kaga jiray. waalidkeed markii hadana u suurtagal weysay 50,000 ee waxay yiraahdeen 100,000 aan ka dhignay qofkii gabadheen meel ku uga noo keeno. okay wiilkii marka ma laga dareemin yani inuu gabadha meel ku ogyahay ama uu wax yani subax kasto uu raadiyaa habeenkii meesha meedkeedu ku hoos jiro jiifta. maalmaha kamid waxaa dhacday markii gabadha wiig la laayahay oo waalidkeed ay qoosteen oo reerkeeda ay ka niyad jabeen oo la iska dhaafo booliska raadinta ay ka dhaafeen. waxaa dhacday in wiilka hooyadiis ay guriga soo gashay ee maagta kacay. marka wiilkan yani aabbaha wuxuu aabba kulul ma ahan yani ilmo guri loo hagaajiyo ilmaha guriga ay hagaagsi jireen sariirta ay gogol jir wax kasto. marka qolkooda qofka ma soo gali jireen labadooda yani wiilkan la wiil asaga dhaltay nin kasta qol u deganaa. marka nin kasta qolkiisa hagaajisana looma soo galaynin. hooyada markay guriga soo gashay waxay dareentay ur aad fara badan. urka markay dareentay waxay istiri yani waa ilmo yare waa gurigii wasaqda iyo waxaas la uraa khalaas cunugeeda ka iskuulka markuu aaday guriga ku soo laabatay. guriga daaqadii markay furtay sariirta hoosteeda waxay maagtay sariirta hoosteeda fiir maxaa ku jiro ku uraayo. sariirta markay fiirisay ruux bini aadan oo soo baxday qaracanka orodtay saldhigga booliska ee istaagtay. booliska yimid guriga markii la fiiriyay meedka yaalo waa meedka oo gabadhii Maliki. wiilkii qalaas markii waa la dareemay inuu Josh dilay gabadhii. Josh baa la baxay iskuulka loogu tagay. booliska soo qabteen waa maxay 12 jir booliska soo qabteen waa la xiray. markii la xiray aabihiis oo socda imaado markii aabihiis socda markuu yimid wuxuu yiri aabba runta sheeg hadii adiga aad fulisay sheeg. wiilkii marka hore aabihiis ka cabsanaa wuu sheegay anaa iga dhacdo yiri anaa dilay. maxaa u dishay wuxuu yiri yani aabbahay inuu dilo ama igu qayliyo aan diiday gabadha soo ooysay isha waxa ugu dhuftay markii ooysay aamus beesana aan waxaan is dhaayntay maxay tad ay oo laheedo adigu lagu dil lahaay iska samee iska dil nafta ka qaadbo qofna ma ku ogaanayso. marka saas darteed oo dil aabeen naxdinta oo ka naxay wadniga xanuun ku dhacay uu dhintay odayga oo Josh aabiisahay. Josh xabsi uu galay markuu xabsiga muddo ku jiray waalid yani marka oo la ogaaday inuu asiga dil waalidkeeda la wargeliyay. waalidkeeda markii la wargeliyay way imaadeen waalidka booliska waxa ku codsan in yani isla sida gabadhooda u dilo in loo dilo because aysan dhacafinaynin wax kasta dhacaan aysan xafis lahayn. okay wiilkii marka xabsiga la galiyay ilaa iyo maxay dhowr iyo 30 sano lagu xukumay. muddo markuu xirnaa oo 2000 iyo hadda 2018 marka maxkamadda la keenay maxkamadda hadana wuxuu ku xukuntay xabsi daa'im kale. hadana wuxuu sugay insha Allah 2025 in hadana maxkamadda ugu dambeysay la saaro oo in la cafiyo ama in maxay in oo xabsiga ku sii jiro. marka qisada Josh intaas waaye. marka waxaan rabaa inaan idin sheego waalidka markuu adag yahay yani aabbaha markuu adag yahay oo ilmuhu yiraahdo qofkaas ma la dheeri kartid qofkaas ma la hadli kartid. ilmaha waa ilmo hadii cadaadiska ay ka badisid ma aragtay wax kasta ku surtoobo. marka aabayaasha kulli aabayaal far badan ay ugu jiro ay fiirsan doono. aabayaasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanay ilmaha inaadan kula dhaqmin laag yani ina meel yani xira ciidan ka bixinaysa tababar. ilmaha marka guriga la joogto waxaa roo ilmaha in awla dhaqantid sida in ilmaha ay yihiin meesha dadka marka la joogto dadka sida normalka la dhaqantid. laakiin odaygan familigiisa wuxuu dhaqmi jiray sida inuu maxay xiro oo tababar joogo ma ahan yani familiga iyo ilmahaaga iyo wixii kugu leeyahay respect iyo xushmad kugu leeyihiin. ilmahana markasta waxaa fiican in la xushmeeyo la respect gareeyo. aana maxay lagu la dhaqmo waxyaabaha adag in la weydiiyo waxyaabaha jooskooda ah. ilmahaaga yani anima ku dhahayo wixii xun ku raac oo waxyaabaha qaladka ah ee sameeyaan ku raac. laakiin wixii qaladka ka celi waxyaabaha sax ah inay dheelaan oo kala ogolaa inay asxaab yeeshaan asxaabta ka fiiriyaan asxaab xun oo jirto ogahay. laakiin asxaabta ilmahaaga yeelnaa ha noqoto yani asxaab adiga ogtay aad taqaanid asxaabta markii inay yeeshaan ha u diidin inay yani soo dheelaan oo ilmo inay soo dheelaan ha u diidin because ilmaha marka inuu maanta soo dheelo hada u diidid oo inuu asxaab yeesho u diidid tomorrow yani wax kasto ka qarsanaa. tan kale waxaa fiican ilmahaaga in la noqdo saaxiibku lagu sheegayo oo runta maanta hadii oo
laakiin ilmaha haddaad saaxiib la noqonin awla dhaqantid sida ina xero ciidan joogto oo tababar aad ka bixinaysid waa dhibaato. marka dhammaantiin waxaa idin sheega yani qof kasta oo ilmo leh oo waalida ama hooyo ah ama aabba ah waxaan rabaa inaan u sheegay ilmaha yani ha noqoto dhaqanka lagula dhaqmaayo dhaqan oo jilcan oo aan adkeen oo dhibaato u imaanin oo noloshiisa wixis aan qaribeenin. hadda wiilkaas yar Josh noloshiisa waxay u qaribantay waxay tahay adeeg yani aabiis uu ka cabsanayo inuu yiraahdo yani sabab aw la dheelis maxay tahay gabadhaas aan ku fasaxin waxyaabahaas keenta marka in wiilkii cabsado. laakiin haduusan odag wax sameyn lahayn oo yani uusan ka cabsan lahayn ani waxa aaminsan in kastoo qadarta halkeeda taa waxa aaminsanahay inuusan gabadhaas dileen because markay gabadh wax ku dhaceen aabiis u keeni la aabiis la marka dhakhtar la geyn lahay. laakiin cabsida uu ka cabsanay aabihii iyo aabi inuu yahay yani aabo kulul anima aan ani yani ma dhahay aabiyaashu way xun yihiin oo ma sha Allah aabiyaashu way fiican aabiyaal boqol fiican oo ku jiro. laakiin ilmaha ha noqoto qaabka kula dhaqmaysid qaab jilicsan ilmaha waxaa cunuga uu ka yahay inaad si jilicsan oo soft oo loo dhaqantid. laakiin haddii aad dhahdo ka waran cunuga uu ka yahay waqti dadkaan waqti no adeeg wax ma tarto. kolley meel kastan joogno insha Allah ilaahay awlaadan wax xafido intaastan Allah u barakayo intaan haysan insha Allah awlaad baariyo caafimaad qabtan Allah siiyo. dhammaantiin aada idin jecelahay dhammaantiin waa idin salaamaa. channelka hada ku cusubtiin subscribe saar like share comment saaxiibadina la sii wadaaga waa fiirsatiin waa iska baxdeen subscribe ka lagu reeba like ta suulka waxa Axmed idinka dhibeyso dhac lagu siiyo insha Allah. aadan u mahadsantiin dhammaantiin one love faa'iido leeyahay aadan idin jecel insha Allah meelaha lagu share gareeyo. waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego ma jeclaan lahayd in aniga nolosheeda iyo taariikhdeeda iyo wax ku ogaata daa jeclaan lahayd insha Allah video kaga soo sameeyay commentiga qofka su'aasha qabo commentiga ayuu soo reebo insha Allah hadii isku raadin insha Allah next video kaga soo sameeyay duu Ilaahay raado. aadan ma sitiin qofka su'aasha uu qabo iyo fikir yani qofkii su'aal qabo iyo qofkii wax kasta qabo oo rabo inuu weydiiyo insha Allah commentiga ayuu soo qoro next video kaga soo reebo insha Allah dii la isku raaco waana mahadsantiin dhammaantiin asxaabteyda bye.